بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برامجكا دعدوينكا تضباطكا او ان مانتا كسو قادنينو خلافكا udhaxeeya bariga dhexe gaar ahaan go'aankii uu Mareykanku ku aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Yahuuda taas oo ay wadamo badan oo muslimiin ahi falcelin ka sameeyeen kuna baaqeen inuu Mareykanku si degdeg ah uga laabto dhanka kale wadamada caalamka ayaa iyaguna baaqiyo caalami ah ka soo saaray ma jiro wax go'aan oo kale oo la mid ah oo qaatay wadamada caalamka وشاعن aan la filaynin in madaxweyne Trump uu noqdo qofkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsada in ay tahay caasimadda Israa'iil dadka Falastiiniinta waxay ugu magac dareen in Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil dhunkaasha dhimashada in ay ku noqonayso hanaanka nabadda ee bariga dhexe laakiin wasiir Israa'iili ah ayaa dawladaha kale ee caalamka ugu baaqay in ay raacaan wadada Mareykanka uu maray arrintan uu khilaafku ka taagan yahay ayaa ah hadal uu shalay gelinkii dambe ka jeediyay Trump oo uu ku aqoonsaday in caasimadda Israa'iil tahay magaalada barakaysan ee Qudus. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu shaaciyo in safaaradda Mareykanka ee ku taala Tel Aviv loo raro Qudus balse lama garanayo xilliga saxda ah ee ay arrintaasi sirgelayso arrintan ay dawladda Mareykanka ugu aqoonsatay Qudus in ay tahay caasimadda Israa'iil ayaa dhalisay caro caalami ah iyo digniino Israa'iil waxay soo dhaweysay isbedelka laakiin Falastiiniyiinta iyo hogaamiyayaasha Carabta ayaa ka digay khatarta arrintan ay u keeni karto hanaanka nabadda ee bariga dhexe. This is a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. It's been the capital of Israel for nearly 70 years. It was here that our temple stood, our kings ruled, our prophets preached. Jerusalem has been the focus of our hopes, our dreams, our prayers for 3 millennia. From every corner of the earth, our people yearn to return to Jerusalem, to touch its golden stones, to walk its hallowed streets. So it's rare to be able to speak of new and genuine milestones in the glorious history of this city. Yet today's pronouncement by President Trump is such an occasion. We're profoundly grateful for the President for his courageous and just decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to prepare for the opening of the U.S. Embassy here. Sacuudiga oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ayaa talaabadan cusub ku tilmaamay daandaansi qayaxan oo ku wajahan muslimiinta. Israa'iil waxay Qudus u aragtaa caasimadeeda halka Falastiiniyiintu ay doonayaan in bariga magaalada barakaysan ay noqoto caasimadda mustaqbalka Falastiiniyiinta. Trump oo Qudus u aqoonsada caasimadda Israa'iil iyo dalkiisuba wuxuu noqonayaa dalkii ugu horeeyay ee go'aan noocaas qaata tan iyo aasaaskii Israa'iil sanadkii 1948. arrinta Qudus waxay xudun u tahay dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo taageero ka helaya dalalka Carabta iyo guud ahaan muslimiinta caalamka. magaalada Qudus waxay meel barakaysan oo diimeed u tahay muslimiinta sidoo kale Yahuudda iyo Masiixiyiinta ayaa si la mid ah aaminsan. Israa'iil ayaa qaybta bariga Qudus ka qabsatay Urdun kadib dagaalkii bariga dhexe ee sanadkii 1967 waxayna magaalada oo dhan u aragtaa inay tahay caasimadeeda aan la kala goyn karin sida uu dhigayo heshiiskii Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee 1993 marxaladaha magaalada Qudus waxay ahaan in looga doodo kulamadii ka danbeeyay midkii lagu saxeexay heshiiskaasi in Qudus ay leedahay Israa'iil wali caalamka muusan u aqoonsanin dunida oo dhan waxay safaaradahoodu ku yaalaan magaalada Tel Aviv ee xarunta Israa'iil tan iyo 1967 Israa'iil waxay bariga Qudus guryo badan uga dhistay qiyaastii 200,000 oo Yahuud ah caalamka ayaa deegaameyntaas u arka mid sharci darro ah inkastoo Israa'iil ay diiday arrintaas
haddaba muxuu yahay qorshaha Mareykanka uu ka damacsan yahay arrintan? Saraakiisha sarsare ee maamulka Trump waxay sheegeen in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa'iil in ay tahay in Mareykanka uu gartay xaqiiqada. si kastaba ha ahaatee xuduudaha gaarka ah waxay sii ahaan doonaan mowduuca heshiiska ugu danbeeya sida ay saraakiisha sheegeen. waxay intaa ku dareen in xaaladaha goobaha barakaysan aysan arrintan saamayn doonin. madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale amri doonaa in waaxda arrimaha dibadda ay bilowdo hanaanka safaaradda Mareykanka loogu rarayo Qudus, laakiin tallaabadaasi waxay qaadan doontaa sanado badan maadaama ay ka fikiri doonaan goobta laga dhisayo iyo arrimaha amniga. Donald Trump wuxuu arrintaasi u ballan qaaday codbixiyayaasha Yuhuudda xilligii ololaha doorashada uu ku jiray. Trump ayaa xaqiijiyay in uu xooga saari doono heshiis nabadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Falastiin kaas oo uu hogaaminayo wiilka uu sodogga u yahay ee la taliyaha sare u ah. haddaba aqoonsigan uu Mareykanku aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, sidee buu caalamku uga jawaabay? Trump waxaa telefoonka ka wacay dhowr hogaamiyayaal ah si ay uga wargeliyaan go'aanka ku aadan arrintan. boqorka Sacuudi Carabiya Salman bin Abdulaziz Al Saudi ayaa Trump u sheegay in safaaradda Mareykanka laga dhiso Qudus iyo in magaalada loo aqoonsado caasimadda Israa'iil ay noqonayso doonto daandaansi qayaxan oo ku wajahan muslimiinta caalamka oo dhan. sidoo kale hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aan noocaas ah oo saameynaya hanaanka nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo caalamka oo dhan. hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya wuxuu ku baaqay in dibadbaxyo laga sameeyo isla markaana gaashaanka ku dhuftaan wax kasta oo u sahlaya in Israa'iil ay degto Qudus, taasna ay u dhimanayaan, waa sidoo hadalka u dhigay. boqorka Urdun Cabdallah wuxuu sheegay in go'aankaasi uu wiiqi doono dadaalka boorka looga jafayo hanaanka wada hadallada nabadda. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan ayaa Mareykanka uga digay cawaaqib xumada ka dhalan doonta aqoonsiga Qudus iyo caasimadeeda Israa'iil. Ayman Safadi ayaa sheegay in uu wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu u sheegay in uu ku dhawaaqida arrintaas ay keensan doonto caro weyn oo ay qaadaan Carabta iyo dunida muslimka. madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi wuxuu Trump ugu baaqay in uusan uga sii darin xaaladda cakiran ee gobolka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu tilmaamay in dalkiisu uu xiriir xun la yeelan doono Israa'iil. Erdogan mar uu khudbad ka jeedinayay telefishinka ayaa uu sheegay in tallaabadaasi ay muslimiinta dunida uga dhigan tahay in ay Mareykanku uu khadka cas ka tallaabay. waxay arrintaasi horseedi kartaa inaan calaaqaadka diblomaasiyadeed u jarno Israa'iil, ayuu yiri Erdogan mar uu ka hadlayay telefishinka dalkaasi. dhanka kale Pope Francis oo ah wadiidka ugu sarreeya masiixiyiinta wuxuu qiray in wada hadallo oo keli ah loo mari karo garashada xuquuqda dadka oo dhan ee ku nool gobolka. Shiinaha waxa uu ka digay in hurinta xiisadda xun ee hadda ka taagan bariga dhexe. shaqaalaha dawladda Mareykanka iyo qoysaskooda waxaa laga hor istaagay in ay u safraan bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus iyo daanta galbeed kadib markii ay soo baxday cabsi dhanka amnigooda ah, waxaana la filayaa isu soo baxyo waaweyn. wasiirka sirdoonka Israa'iil oo lagu magacaabo Israel Katz wuxuu idaacadaha ciidamada u sheegay in ay isu diyaariyaan wax kasta oo sida in ay rabshado dilaacaan. Faransiiska, Midowga Yurub iyo ururka Jaamacadda Carabta ayaa dhankooda walaac ka muujiyay saameynta uu yeelan doono go'aanka Trump. dawlado fara badan oo caalamka ayaa Trump uga digay in uu arrintaasi ka noqdo, taasoo ay u arkaan mid sharci darro ah ama ay u arkaan mid nabadda bariga dhexe halis weyn ku ah. waa tahay daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhacdooyinka toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadanay khilaafkii ka taagnaa magaalada Qudus oo Mareykanku aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
waxaan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi dhinaca kaamirada waxa ii fadhiyay wariye Afakaadho Maxamed Axmed dhinaca farsamada waa wariye Nuur Maxamed tan iyo kulantideena tan xigta waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgeliyo